gudoomiyaha shacabka Hiiraan Abu Kalxuud ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waa salaamay waxaan rabaa inaan ka tacsiyo ugaas Xasan ugaas Khaliif dhimashadiisii waxaan naga tacsiyeenayaa kow ahaladiisii hoose ilmihii uu dhalay iyo xaaskiisii iyo adeeradii iyo ilma adeertii iyo dadkiisii oo dhan famliga hoose waxaan leeyahay ilaahay jannada naxariista ka waraabiyo idinkana sabar iyo iimaan Allah idinka siiyo intaas waxa ay dheer waxaan u tacsiyeenayaa beesha xawaalo oo ka dhintay ugaaska waxaan u sheegayaa ugaaska ugaas adagoo ahaa ugaas sida uu wax ku wada la fahmi waayo ahaa ugaas wuxuu ahaa jecel beesha inuu horumar gaarsiiyo laakiin waa laga hor yimid sidoo jeclaa ma dhicin laakiin hadda annaga wadna sidoo jeclaa oo ahayd inaan joohar ka go'no gaar u istaagno danaha iyaga iyo maslaxadeeda ka shaqaysano masiirkeennii dhulka ku dhacay iyo dadkii xumeeyey oo aan naqaano oo xawaadla ah inaan bannaanka u saarno una raalli ahaada waa aragnay sidaa u shaqayseen ceebteeda iyo dhibaatadeeda iyo foolxumadeeda haddaadan doonayn inaan isdilno nabad ahla ahaa tihiin dalkan horumar noogu baahan yahay dadkan waxtar ugu baahan yahay dalkan iyo dadkan waxa ka maqan inay helaan u baahan yihiin oo kaga maqan dowladda federaalka iyo dowlad kasta waad ogtihiin waxyaabaha ka maqan xawaadle xuquuqdiisa inay baabaaday ma ka yeelayna marka nin mar labaad u istaaga inuu xawaadle ceel ku rido ka joogaan leenahay soo raac dadkaaga bulshadaada waxay qabta qab wax ka badan haddaa la timaado reero kale ay qabaan oo aad doonaysid bulshadeenna inaad hoos dhigto bulsho kalena aad kor u qaaddo war lagaama yeelin mar dambe madaxaada ha gelin hadday diiddo inay ka baxdane waa laga saarayaa awow si kastoo looga saaraba xawaadle iyo reer Hiiraan meel kasta ay joogaan waxaa u diyaara in danahooda mustaqbalkooda aayaha ilmahooda intaba inay ka tashtaan ayaga oon looga talin oo qofaysan aqoonin loo soo dirin oo la dhihin madaxuu idin yahay maamulka idin qabto waa in la yaqaan qofka maamulka qabanayo waa inuu aqoon u leeyahay maamulka waa in bulshada sida ay u dhisan tahay iyo sida ay baahideeda tahay uu kala garan karo qofaan weligii allihii maamul qaban maamul arag ayaa maamul qaba la leeyahay sababta loo leeyahay wax kale maaha in lagu shaqaystaa la rabaa asagina uu dadka ku sii shaqaysto macquul maaha wax adduunka ka dhacay maaha war taas waa dhammaatay waa diidnay mana lagu qasbi karo qof kastoo xawaadla ah oo waxgal ah ayaan u baahannahay Hiiraan inuu yimaado ama qof kasta oo reer Hiiraan oo waxgal ah ayaan u baahannahay inuu Hiiraan yimaado oo mustaqbalkaas laga wada taliyo si Soomaalinimo dadnimo looga taliyo okay gobolada Soomaaliyeed eed aragteen qolo walba waa tashatay markay tashatana dariiqii qabsatay maxaa noo diiday anaga inaan tashano dariiqa qabsano anagoon cidna lid ku ahayn anagoon cidna ku dhibayn anagoo kaliya u jeedno kii isku daya xaqayaga inuu cagta saaro in anagana agtaga cagta saarno ma la isbaryayo maanta wixii ka dambeeya waxaan xaq u leenahay gacanta midig aan ku qaadanayno cid aan ka baryayno iyo cid aan u hoostagayno iyo cid wakiil nooga noqon karta midna ma jirto odayaasha Soomaaliyeed iyo nabadoonnada Soomaaliyeed iyo nabadoonnada reer Hiiraan ugaasyada wabarrada iyo nabadoonnada xawaadle intaba hawada waxaan u marinayaa salaan waxaana leeyahay sabar iyo iimaan Allah naga siiyo mar labaad ugaaska waxaan rajaynaynaa inayna arrinta saas ahaanin oon markiiba qabanno guddi ka sii shaqeeyo sidii loo dhisi lahaa ugaaska